kula wacan oo wanaagsan daawadayaal waxaad ku soo dhawaataan xogihii ugu waaweynaa ee naga soo gaaray Soomaaliya Ramadaan Kariim ayaan idin leeyahay qodobada aan idin hayana waxa ka mid noqonaya Imaam Maxamed Yuusuf oo war ka soo saaray rabshadihii dhawaan ka dhacay magaalada Muqdisho Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble oo si degdeg ah ugu baaqay shacabka ku nool Muqdisho inay guryahooda ku soo laabtaan kuwa oo dhawaan ka barakacay dagaaladii ka dhacay magaalada Muqdisho gaari laga soo buuxiyay waxyaabaha qarxa oo maanta lagu weeraray xarunta taliska ciidanka asluubta Ex Control Afgooye qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya oo hadal jeedintii xalay madaxweynaha Soomaaliya ku tilmaamay iideh siyaasadeed ciidanka ka soo horjeeda muddo kororsiga oo xalay degay xaafado cusub oo ka mid ah magaalada Muqdisho madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud mar kale ayuu degniin ka soo saaray arrimaha ciidamada iyo sidoo kale doorashooyinka qodobadaas iyo qodobo kale oo aan idin qarinayo ayaan idinkugu soo gudbinayaa xogihii ugu xasaasisanaa ee naga soo gaaray Soomaaliya waqti wacan ayaan idin leeyahay waa tahay isku soo noqod wanaagsan ayaan idin leeyahay haddii aan ku bilaabo ra'iisul wasaaraha xilka sii haya mudane Maxamed Xuseen Roble oo soo saaray qoraal kooban ayaa mar kale waxa uu ka hadlay xaaladda adag ee magaalada Muqdisho isaga oo fariin culus u diray shacabka iyo ciidamada ammaanka Roble ayaa ugu baaqay dadkii shacabka ahaa ee ka barakacay guryahooda inay dib ugu soo laabtaan caasimadda maadaama xiisadii taagneed xal laga gaaray waxaan ugu baaqayaa dadkii ku barakacay qalalaasihii maalmahan ka jiray Muqdisho inay guryahooda ku soo laabtaan ayuu yiri Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble sidoo kale waxa uu amray ciidamada ammaanka in shacabka ay u fududeeyaan in guryahooda iyo ganacsigooda ay markaasi ku soo noqdaan Ra'iisul Wasaaraha oo hadalkiisa sii wata ayaa tilmaamay inay ka go'an tahay xukuumaddiisa in la helo nabad iyo xasillooni buuxda si dalkan ay uga dhacdo doorasho wada ogol ah ciidamada waxaan farayaa inay shacabka u fududeeyaan in guryahooda iyo ganacsigooda ku soo noqdaan waxaa naga go'an in shacabkeena ay helaan nabad iyo xasillooni ayuu sii raaciyay Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble hadalkan ayaa ku soo aadaya iyadoo haatan ay degan tahay xaaladda magaalada Muqdisho kadib markii shalay Ra'iisul Wasaaraha uu shaaciyay in la aado doorashooyin xor iyo xalaal ah si dalka loo badbaadiyo lagana hortago in markaasi dalka uu galo qalalaasay iyo sidoo kale foodo hor leh Imaam Maxamed Yuusuf oo sheegta inuu yahay imaamka Mudulood ayaa ka hadlay xaaladda siyaasadeed ee dalka iyo shaqooyinkii ugu dambeeyay ee ka dhacay magaalada caasimadda ee Muqdisho kuwaasi oo u dhaxeeyay madaxda waqtigoodu dhamaaday iyo mucaaradka imaamka ayaa ugu horeyntii ka tacsiyeeyay dadkii ku waxyeeloobay dagaaladii maalmihii ugu dambeeyay ka dhacay magaalada Muqdisho isagoona ku baaqay in nabadda la xoojiyo iyada oo laga baaqsanayo in dalka uu galo dagaal hor leh waxa uu ku taliyay in la fuliyo heshiiskii 17 September si dalka loo samata bixiyo waxaana uu soo dhaweeyay go'aamadii waaweynaa ee ka soo baxay madaxweynayaasha Galmudug Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed oo ka hor yimid muddo kororsigii uu meel mariyay golaha shacabka sidoo kale waxa uu bogaadiyay Ra'iisul Wasaaraha xilka sii haya inuu kaalin muhiim ah ka ciyaaray xaaladda dalka isla markaana uu soo dhaweeyay isbeddelka cusub ee ku yimid xaaladda dalka kaasi oo la filayo in uu markaasi dalka u jihiso doorasho wada ogol ah ugu dambeyntii waxa uu imaamku ku baaqay in gacan laga geysto dib u soo celinta dadkii ku barakacay shaqooyinkii ka dhacay magaalada Muqdisho waxaan ku talinayaa dadkii xamar ka qaxay ee masaakiinta ahaa waxaa ummadda wax haysta iyo sidoo kale dadka kaleba ugu baaqaya in ay dib u dejin u sameeyaan dadkaasi maadaama dhorkii maalmood ee la soo dhaafay xaalad akiran ay ku haysatay duleedka magaalada Muqdisho hadalka imaamka ayaa imaanaya xilli madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu xalay saq dhexe shaaciyay in uu ka qayb qaadanayo in dalka uu aado doorasho iyadoo la raacayo heshiiskii 17 September isla markaana go'aanka arintaasi ku aadan uu markaasi horgeyn doono baarlamaanka Soomaaliya maalinta Sabtida ee soo aadan faafayno dheeraad ah ayaa waxaa laga helayaa qasaaraha ka dhashay qarax xoogan oo saaki aroortii ka dhacay agagaarka isgoyska Ex Control Afgooye ee duleedka Muqdisho kaasi oo geystay qasaare kala duwan wararka ayaa sheegaya in qaraxan loo adeegsaday gaari laga soo buuxiyay waxyaabaha qarxa kaas oo lagu dhuftay darbi ka mid ah dhismaha xerada ciidanka asluubta Soomaaliyeed oo ku taala halkaasi waxaana joogta qaraxaasi si weyn looga maqlay qaybo badan oo ka mid ah caasimadda ila wareediyo ku sugan Ex Control ayaa bahda TV u sheegay in qaraxa uu dhacay xilli ay saf dhaadheer ku jireen ciidamada asluubta ee ka howlgala xeradaasi ujeedka gaariga siday qaraxa
ayaa ahaa in uu gudaha u galo xerada ciidanka asluubta balse uu soo dhaafi waayey derbiga oo aad markaasi ammaankiisa loo adkeeyey. inta la xaqiijiyey waxaa qaraxan ku dhintay ugu yaraan 10 qof, sidoo kalena 10 kale ayaa wararku sheegayaan inay dhaawacyo ka soo gaareen. ma jirto weli wax hadal ah oo ka soo baxay saraakiisha laamaha ammaanka Soomaaliya oo ku aadan qaraxaasi, balse waxaa haatan socda baaritaano dheeraad ah oo ku aadan qaraxaasi iyo sababta uu halkaasi u soo gaaray gaariga qaraxa siday. xildhibaan Mahad Maxamed Salaad oo kamid ah mudanaasha golaha shacabka gaar ahaan kuwa mucaaradka ayaa ka falceliyay khudbadii uu xalay jeediyey madaxweynaha waqtigiisu dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo isaga oo ku soo koobay ilaa iyo 5 qodob. Mahad Maxamed Salaad ayaa shaaca ka qaaday in madaxweynaha uusan khudbadiisa ku soo hadal qaadin dhibaatada ka taagan magaalada Muqdisho iyo qalalaasaha siyaasadeed ee dalka. sidoo kale waxa uu intaas ku daray in ujeedka Farmaajo uu ahaa iideh siyaasadeed oo uu waqti ku iibsanayo sida uu hadalka u dhigay. xildhibaan Mahad Salaad ayaa sidoo kale ugu baaqay xubnaha mucaaradka inay heegan ku sii jiraan inta laga hubinayo in dalka uu aadayo doorasho madax bannaan. madaxweynihii hore ee Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo u waramayay wariyaasha ayaa mar kale waxa uu ka hadlay xaaladda siyaasadeed ee dalka gaar ahaan muranka doorashooyinka iyo arrimaha ciidamada. Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay in marar badan uu ku celceliyay digniinta ku aadan in aan la siyaasadeen ciidamada balse la arkay wixii dhacay sida uu hadalka u dhigay. sidoo kale musharax madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sidoo kale ugu baaqay ciidamada inay iska diidaan wax kasta oo ka hor imaanaya dastuurka. waxaa kaloo intaas ku daray in ay muhiim tahay in wax walba lagu dhameeyo miiska wada hadalka isla markaana laga wada tashado aayaha dalka iyo badbaadintiisa. hadalkan ayaa ku soo aadaya iyadoo Muqdisho ay ka dhaceen dagaalo u dhaxeeya ciidamada dawladda iyo kuwa kale oo taabacsan mucaaradka isla markaana ka soo horjeeda muddo kordhinta loo sameeyay madaxweynaha waqtigiisu dhamaaday ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. gudoomiyaha golaha shacabka Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan ayaa iclaamiyay fadhi gaar ah oo ay degdeg isugu imaanayaan xildhibaanada Soomaaliya kaas oo uu codsaday madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. fariin gudoonka golaha shacabka uu u diray dhammaan xildhibaanada ayaa laga codsaday inay soo xaadiraan kulanka isla markaana uu imaanayo madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. xildhibaanada dalka dibadiisa ku sugan iyo kuwa gudaha ku sugan waxaa la farayaa inay si degdeg ah u soo galaan caasimadda Muqdisho si ay u soo xaadiraan fadhigan aan caadiga ahayn maalinta Sabtida ah oo taariikhdu ay ku beegan tahay 1 bisha May 2022 maadaama ay jiraan xaalado adag ayaa lagu soo koobay war-saxaafadeedka ka soo baxay gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan. madaxweynaha Soomaaliya ayaa lagu wadaa in uu markaasi ka codsado golaha shacabka in ay ka noqdaan go'aankii muddo kordhinta ahaa ee 12 Abriil ee isna uu saxiixay kadib markii uu cadaadis iyo cambaareen kala kulmay gudaha iyo dibadda. Farmaajo ayaa go'doon siyaasadeed galay shalay kadib markii muddo kororsiga ay diideen ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble iyo qaar ka mid ah madaxda maamul goboleedyada. marka baarlamaanku ka laabto muddo kororsiga ayaa la filayaa in dib loo furo wada hadaladii dawladda federaalka iyo dawlad goboleedyada si loo gaaro heshiis siyaasadeed oo horseedaya in dalka ay ka dhacdo doorasho wadar ogol ah. ugu dambeynna ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa lagu soo waramayaa in saacadihii la soo dhaafay howlgal qorsheysan ay ka fuliyeen duleedka deegaanka Jannaale ee gobolka Shabeellaha Hoose halkaas oo ay markaasi ku xogan yihiin ururka Al-Shabaab. howlgalka ayaa si gaar ah uga dhacay tuulada Ugunji lagu magacaabo kadib markii weerar gaadma aha ay soo qaadeen xubno ka tirsan militariga Soomaaliya. saraakiil ka tirsan ciidamada xoogga dalka oo la hadlay warbaahinta ku hadasha afka dawladda ayaa shaaca ka qaaday inay heleen xog ku aadan weerar kooxda Al-Shabaab ay ku soo abaabulayeen halkaasi isla markaana ay ku soo wajahnaayeen deegaankaasi lagu magacaabo Jannaale oo dawladdu dhawaan ay qabsatay. sidoo kale saraakiisha ayaa sheegay in ay dileen ugu yaraan 11 dagaalame oo ka tirsan Al-Shabaab isla markaana ay gubeen gaari Cabdibila ah oo markaas loo diyaarinayay fulinta weerarkaasi. dhinaca kale ma jirto hadal oo ka soo baxay Al-Shabaab oo ku aadan howlgalkaasi ay gudaha ugu galeen deegaankaasi isla markaana ay ku xasuuqeen xubno ka tirsan Al-Shabaab. Shabeellada Hoose ayaa muddooyinkii dambe waxaa ka dhacay weerar geystay khasaare kala duwan iyadoo ay xoogeysteen dhaqdhaqaaqyada ka jira halkaasi. guud ahaan wanaaganta xogihii ugu waaweynaa ee naga soo gaaray Soomaaliya Ramadaan Kariim ayaan hawdeeda ka leenahay.